Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada. Insha Allah waxaanu samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo inaynu laba kombiyuutar isku xirno anagoo adeegsanayna cable cat6 anagoo adeegsanayna insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. Okay, marka ugu horreyn waxaan u baahanahay waxay tahay labadii kombiyuutar waa inaynu isbarnaa. Waxa weeye labada kombiyuutar si ay information sharing u sameeyaan waa inay labada kombiyuutar marka koowaad isbarnaa. Marka waxaynu samayn doonaa markaan rabno inaynu laba kombiyuutar isbarno laba option ayaan usoo geli karnaa marka. Then midda koowaad waxaan tegi doonaa meeshaan kombiyuutarka looga xiro internetka baynu tegi doonaa. Waxaynu leenahay open network internet setting baynu tegi doonaa. Waxaynu kasii tegi doonaa internet baynu kasii tegi doonaa. Then waxaan kasii tegi doonaa network sharing center. Okay, halkan markaan tagno halkan haddaa fiiriso connections ayaa uga jeedaa labada kombiyuutar isku xiran yihiin. Halkan waxaa uga jeedaa waxay tahay xariga RJ45 ka afkiisa ayaa meeshan kaaga soo baxaya. Haddii marka labada kombiyuutar halkan aysan isku xirnayn xogtan kuma soo bixi doonto inaba noqoto wax kusoo baxaya ma jiraan. Marka ayada ayaan ku dhufan doonaa marka. Then waxaan kasii tegi doonaa property ayaynu tegi doonaa. Waxaynu kasii tegi doonaa insha Allah waxaynu tegi doonaa meeshan internet protocol version 4 ay ku qoran tahay TCP/IP4 v4 ay ku qoran tahay ayaynu ku dhufan doonaa. Marka adiga kombiyuutarka soo gasho haddii kombiyuutarka waxa weeyaan systemka hadda kahor aan la marin sidaan ayuu ka yahay. Tuutuna waxay kaa saarta obtain an IP address ayay kaa saarantaa. Marka tan hoose ayaa loo baahan yahay saadho use the following IP address tan ayaa dooran doonaa. Halkan waxaan ku qori doonaa insha Allah 192.168 then 1 halkan marka meesha ugu dambeysa waa meesha kombiyuutarada ku kala duwanaan doonaan oo kombiyuutar walba waxa weeye uu qaadan doono number gooni ka qaadan doono. Haddii kan aan 1 ka dhignay ka kale waxaan ka dhigi doonaa 2 ayaan ka dhigi doonaa ama 3 ayaan ka dhigi doonaa. Marka halkan waxa weeye waa subnet mask waaye click ayaan siin doonaa automatically ayaa xogtaan noo soo gelin doonaa meesha. Okay baynu leenahay then waxaynu leenahay okay baynu leenahay close ayaynu leenahay. Midas marka system kale marka dhowta halkan baan tagnay halkan baan kasoo galnay marka optionka kale aan kusoo gali karnaa waxay tahay inaynu setting aadno setting setting markaan tagno waxaan tegi doonaa internet markaan tagno waxaan tegi doonaa network and sharing center taana waa kasoo gali karnaa oo setting anagoo halkan kasoo galna setting iyo halkan ka imaanana taana waa option kale aan kusoo gali karno hadda waxaan u baahanaa marka kombiyuutarka kale marka haddii marka kan aan ka dhignay meeshan aan 2 ka dhignay kan haddii aan ka dhignay waxa kale 1 kan haddaan meeshan ka dhignay maxaan kale ka dhigi doonaa hadda kombiyuutarka waa inoo yahay qaab baa labada kombiyuutar u mari doonaa habkan laakiin ka kalena waxaan ka dhigi doonaa 2 baan isagan ka dhigi doonaa ama 3 baan ka dhigi doonaa si mataqaanaa labadii kombiyuutar ay information u sameeyaan halkaana meesha ay ugu kala duwanaadaan lambarkaas isku aqoonsanayaan. Okay, marka hadda waxaan u baahanaa waxay tahay inaynu sameyno marka information sharing inaan sameyno inaan sawiraan dirno ama waxyaabo kale aan dirno. First saa ogaataan waxyaalahan dirno halkan folder cusub baan ku sameyn doonaa. Waxaan leeyahay new folder folderkan waxaa loo bixin doonaa tusaale waxaan u bixin doonaa sky aan iska iraahdo sky. Okay, folderkan marka waxbaan kusii dhex ridi doonaayo waxaan ku dhex ridi doonaa xog ay ku qoran tahay xogtan kan folderkan kale xogta kusii qoran tahay baan ku dhex ridi doonaa. Okay, sky waa kana waxaa ku jira waxay tahay marka folder kale asagana kusii dhex jira. Marka folderkan sky ku qoran tahay hadda aan sameyno newga inaynu share gareyno oo kombiyuutarka u share gareyno ayaan u baahanaa. Okay, first waxaan sameyn doonaa waxay tahay marka folderka aad rabtid inaad share gareysidba baad dul tegaysaa right click baan siin doonaa then waxaan leenahay property ayaynu leenahay waxaynu dooran doonaa sharing baynu dooran doonaa waxaynu dooran doonaa advanced sharing baynu kasii dooran doonaa okay baynu leenahay then waxaan leenahay share this folder apply aan iraahdo meeshaas permission baan dooran doonaa marka halkan marka waxaad dooranaysaa allow all allow baa leedahay marka apply then apply okay inta markaan sidaa u sameyno waxaynu
dooran doonaa share meesha ku qoran ku dhufan doonaa waxaynu ku dhufan doonaa meeshan qaabka markuu soo baxaya tan ayaa dooranaysaa everyone ayaa leedahay then waxaan leenahay add waxaynu kusii dhufan doonaa read and write macnaha qofkan uu akhrin karo waxaan ku qori karo so share waxaan leenahay dhan baynu leenahay okay close aan iska raacay marka so masuurkii marka information waxaan share gareynaa waxay tahay casharka waxaan share gareynaa folder caadi aan share gareynaa waxaan baa markaa soo ogaano in waxyaalo kale ayadana share gareyno oo ku darno sida waxa weeyaan video iyo waxyaalo xiriir oo kale so waxaan tagi doonaa waxay tahay video meel igu jira ka dhaafo videogan kale aan soo qaato kan ay ku qoran tahay lesson 1 ay ku qoran tahay kan ayaan share gareyn doonaa right click baynu leenahay waxaynu tagi doonaa property baynu tagi doonaa wow so waxaan moodaa xogaan soo taagan yahay halkan aan ka bilaabo properties waxaan ku dhufan doonaa marka sharing baynu oran doonaa sidoo kale aan sidan u share gareyn doonaa wax kastoo share gareynaysa isku qaab baa u mari doontaa okay waxaan leenahay meeshaas hore inaan u share gareeyay u dhowdahay share aan iraahdo so everyone aan iraahdo asagana aan iraahdo everyone then add then waxa weeyaan waa midba hore u share gareeysan dareemayo okay ayadana marka qaabkaas ayaa u share gareynaysaa so lesson 1 baa ku qoran okay marka hadda waxaan u baahanaa marka xog waxaan soo share gareynay computerka kale inaan ka aragno ayaan u baahanaa ila soo computerka ayaan insha Allah isla aadi doonaa okay waaya hadda waxaan soo galnaa waxay tahay marka computerka aan soo galnaa so labada computer haddaan rabno marka inaanu fiirino meesha macnaha inaynu aragno xogtan soo dirnay waxaynu tagi doonaa waxay tahay network baynu tagi doonaa then computerka xogta soo diray waa kana marka waa computer 2 waaye desktop 2 waaye macnaha waa computer 2 waaye okay asaga ayaa marka click siin doonaa waxaan soo dirnay waxa ku qornay mid waxa ku qornay lesson 1 oo wuxuu ahaa video buu ahaa midna waxa ku qornay waxa kale loo yaqaano sky baa ku qornay marka sky waa kana folder kale ku soo dhex jira waxa ku qoran tahay casharkaas ayaa asagana ku soo dhex jiray waaye sidaas la mid ah ku soo mogal yahay cashar ku qornay lesson 1 asaguna waa kana dad xustaan video buu ahaa ku sii dhufo asaguna waa videogaas waaye asaguna videogaas marka qaabka u isticmaali kartaa waxay tahay laba isku xirsid systemkaas ayaa u mari